السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليقا ومركلة يفيديو عصب يمالي عصب حدير تيني أنا العافمة القبطان دمانتين عافمة ضحك في عنو إله اللي سيرتي يمجرو دمانتي حالتيني ميل كستو العالم كجوتان إن يدون عافمة القبطان ما أنت صابتين تلقوكو عرقتان فيديو قال لي وانا وحويان صدح الشيء عم بصدح وحيابات oo Soomaalida YouTuberiska ka qaldan horta Soomaalida YouTuberiska xilliga YouTube ka bilaabeen ee Soomaalida dhamaanteeda YouTube ka wada baratay wada wadoogi YouTuberiskan YouTube ka ugu caansan ee Soomaalida markay ka hadlayno qof kasta oo Soomaaliya oo YouTube taawada amba YouTube social media YouTube ka caana wala wada garanayaa goortu soo galay YouTube bariyo hore dadku Soomaalida ay isticmaali jireen Facebook ay aad ugu badnaayeen Facebook page ay halkoogaas ku soo bandhigi jireen waxay soo bandhigayaan balse bariyihii dambe adigu 2017 YouTuberiska ugu caansan ee imika ay daawana ay bilaabeen sida KCK Tirisla Abdi iyo YouTuberiste aad u fara badan oo imika YouTuberiska Soomaalida lama soo koobi karayo aad iyo aad u fara badan haddaba intaynaan u gudagelin saddexda shay ee aynu ka hadlayno maanta ayaa bal adigaagani daawanaya daawade goorma ayay ahayd markii kugu horeysay ee aad daawato YouTube goorma ahayd markii kugu horeysay ee aad daawato YouTube ee aad channel subscribe hot YouTube wala wada daawan jiray oo ciyaaro amba waxyaabo kale waa laga daawan jiray laakiin goorma ay ahayd markii kugu horeysay ee aad channel subscribe inta saarto aad la socoto su'aasha waxaan weydiinaa daawadayaasha ku xidhan channelkan Mo Somali Media meel kasta dunida ka joogtaan mar labaad iyo mar saddexaad aad idin salaamaya haddii aynu gudagalno aniga idinla hadlaya yaana sheeka boodini waxaa YouTube-kii ugu horeeyay aan subscribe saaray 2017 oo aan si sax ah ula socday anigu ma xasuusto YouTube-ku ahaa kan subscribe-kii ugu horeeyay u saaray haddii aad adigu daawada tahay xasuusta markii ugu horeeyay channel-kii ugu horeeyay ee uu intuu subscribe saaro uu si caadi ah ula socdo fikirka wadana wadaagi doontaa commentiga nagu reeb aad iyo aad baan idin salaamaya haddaba aynu gudagalno muhiimadda videogeena haddii aynu gudagalno saddexda waxyaabood amba saddexda shay ee YouTuberiska Soomaalidu ay saddexda dhibaato haysta Soomaalida YouTuberiska haddii aynu gudagalno ta koobaad waxa weeyaan waa muran fara badan oo ka dhex jira Soomaalida dhexdeedii waxaad arkaysaa YouTuber wax soo dhigaya amba hebel ka hadlaya amba hebel kale ka hadlaya midkii laga hadlayay baa soo qaadanaya kii kala hadlaya waa dhibaatada koobaad ee haysata YouTuberiska Soomaalida ayaa waxa ku qeexi karaa inay tahay muranka faraha badan ee ka dhaxeeya hebel baa soo hadlaya hebelkan kale loo hadlaya marka waliba ninka la yiraahdo Tirisla Abdi ayaa hadalka isagu ninka inta ugu badan YouTuberiska ugu faraha badan leh aan arkay anigu ee badankiis haysta waxa bilaaba Tirisla Abdi ninkana waxa leenahay imika Soomaali kastoo aan imika sidii hore haddana ahayn haddana bulshada waxaad ku soo kordhisaa wax cusub oo murankan faraha badan leh YouTuberiska dhaxwado kada haddaynu gudubno qodobka labaadna waxa weeyaan waa lamaanayaasha Soomaalida ee YouTube-ka ku soo badanaya ee ku jira waxaad arkaysaa lamaanayaal fara badan oo amba fanaan mid ha ahaado amba mid kale adu waxaad arkaysaa lamaano mid YouTube hore sii lahaa kadib kii kale wuxuu sameynayaa waxay sameeyaan waad aragteen inay waxyaabo jacayl sameeyaan waxyaabo kale fara badan ay sameeyaan midba waxyaabahan ay duubayaan dhibaatada ka imanaysa hadhow talo aad arkaysaa tan loo kale dad fara badan oo amba fanaaniin ha ahaadaan amba YouTubers caadi ha ahaadaan iyagoo isqabay oo YouTube-ka waxay ku soo dhigi jireen aan la soconay kadib hadhow tole markay islaayaan amba ay kala tagaan calafkoodu kala dhamaado waxay halay ku dambeeyaan weynoogno fiidiyoada qaar baa ka saara marka YouTube dhibaatada koowaad ee haysata Soomaalida waxa weeyaan
aan ka dhigay qodobka labaad inay iska daayaan waxaan, oo haddii ay noloshooda dhabtaa aanay soo bandhigi karin, noloshooda dhabtaa ma soo bandhigaan markii ay youtube-ka laga daawanayo. waxaan leeyahay noloshii dhabtaa mar walba ma soo bandhigtaan, laakiin haddana khiyaaligan faraha badan leed youtube ka dhex wataan ka daaya. qodobka saddexaad ee dhibaatooyinka haysta youtuberska soomaalida waxa weeyaan waa isla degis iyo wax iska sheegis iyo isxaasidnimo iyo waxyaabo badan oo la isdhex wado. walow iminka aan aad iyo aad ugu mahad celinayo oo halkan aan mahad uga dirayo youtuberska jooga magaalada Malaysia oo ah youtubero soomaalida kusoo kordhiyay dhaqan cusub. qof kastoo youtuber soomaaliyeed doonaya inuu meel ka gaadhana kusoo kordhiyay dhaqan inaan hore u arag, oo ah in ay iskarab qabtaan oo mid aan xataa hal subscribe haysantii soo kaxeeyaan ay yidhaahdaan maanta hebel baan wadnaa. waxaan halkan si aan mahadnaqaanan soo koobi karin aan ugu dirayaa dhammaan youtuberska jooga magaalada Malaysia oo youtube-ka soomaalida kusoo kordhiyay dhaqan cusub oo ugu horeeyaan arrimaheena Liicaato iyo Muniir iyo dhammaan dee halkan kuma soo koobi karaya magacyadooda. dhammaantoodba waxaan leeyahay waa mahadsantihiin dhaqankaa fiican ee youtube-ka aad kusoo kordhiseen, weliba dhanka soomaalida waxaan leenahay keep going. waxaa kaloo aan halkan iyadana ugu mahad celinayaa youtuberska kale la yidhaha KCK oo isna sameeya waxyaabo fara badan, oo haddii uu arko qofkaas inuu talent leeyahay amba waxyaabo bulshada kusoo kordhin karaya isagu ugu horeeyo yidhaahda qofkaas subscribe u saara. saddexdii qodob ee title-ka saad ku aragtaan baan idiin soo gudbinay. waxaan rajeynayaa inayd si fiican idinkuna aad fikirkiina commentiga insha Allah nagula soo wadaagi doontaan. waxaan leenahay intaynu ku kulmi doono video lamid ah.